galgaduud gaar ahaan deegaanka ceel la helay oo ay shalay qayb ka mid a qabsadeen ciidanka dawladda saaka waxay qoraxda u soo baxday iyadoo la maqlay rasaas culus isla markaana uu ka socdo dagaal aad u qaraar sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid a dadka deegaanka sidoo kale deegaankan shalay waxay qoraxda u dhacday iyadoo uu socdo dagaal kale oo u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo militariga Soomaaliya oo isku dhinac ah iyo kooxda al-shabaab saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo aan la hadlay xilli hore oo maanta ah waxay ii sheegeen in al-shabaab ay soo qaadeen dhowr weerar oo culus tan iyo markii ciidamada ay galeen qayb ka mid a deegaanka istiraatiijiga ah ee ceel la helay deegaankan oo ay al-shabaab iyo ciidamada huwanta ay wada joogaan ayaa ah aaggii ugu horreeyay ee la isku qabtay kadib duulaankii degmada ceelbuur haddii dhinaca kale loo fiiriyana ciidamada dawladda waxay ka dagaalamayaan qayb ka mid a degmada ceelbuur oo ka mid a goobihii ay ugu xooganaayeen dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka dawladda iyo kooxda al-shabaab waxa uu ka socdaa 3 jiho oo galgaduud ah waxayna kala yihiin ceel la helay oo ay ka baxeen dhinaca magaalada Dhuusamareeb dhinaca deegaanka Jaaw oo ay ciidamada dawladda ka baxeen magaalada Guriceel waxa uuna ku wajahan howlgalkan degmada ceelbuur iyo dhinaca deegaanka Cadakibir oo ay ciidamada dawladda ka runqaasadeen magaalada Baxdo oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya labada aag ee dambe Cadakibir iyo Jaaw saaka lagama soo warin xaalad dagaal laakiin shalay waxaa lagu dagaalamay Cadakibir waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaareen labadii dhinac ee dagaalamay al-shabaab waxay isku dayayaan inaysan ka bixin degmada ceelbuur ama ugu yaraan aan si fudud looga qabsan magaaladaas laakiin waxaa dul saaran awood ciidan oo cir iyo dhul ah waxaana hogaaminaya 30 jirka generaalka ahna taliyaha militariga Soomaaliya Odawaay Yuusuf Raage oo dadka yaqaana ay ku sheegaan nin dagaalyahan ah istiraatiijiyad fiican geesi ah isla markaana aan laga faa'iideysan sanadihii la soo dhaafay ninkan oo dhawaan ku bixi doona awood qaybsiga beelaha ee 4.5 markii loo eego magacaabista taliyaasha ciidamada qaranka maadaama beeshiisa loo magacaabay taliyaha NIS ayaa hadda lafdhabar u ah howlgallada ka socda dalka waxaana maalmo ka hor hogaaminaya dagaaladii al-shabaab looga saaray bariga gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya haddana waxa uu joogaa furmaha dagaalka ee gobolka Galgaduud maamulka Galmudug ayaa sheegay in ay guulo ka gaareen dagaaladii 24 saac ee la soo dhaafay ka dhacay 3 jiho oo ka mid a deegaanada maamulkaas dagaalamayaasha al-shabaab waxay ugu baaqeen inay soo dhiibaan inta aan loogu tagin halka ay joogaan waxay kaloo Galmudug ay ballan qaaday in la siin doono magangalyo iyo ammaan qof kasta oo ka mid a al-shabaab oo isa soo dhiiba ka hor intaysan ciidamada dawladda qaban dawladda Soomaaliya ayaa dhankeeda guulo ka sheegatay dagaaladii ka dhacay Galmudug waxaana fariin hambali ah ciidamada huwanta ah u diray Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo shalay gelinkii dambe qadka telefoonka kula hadlay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo hogaaminaya dagaalkaas iyo qaar ka mid a ciidamada huwanta ah ee dagaalka ku jiro dhinaca kale afayeen u hadlay kooxda al-shabaab oo lagu magacaabo Cabdicasiis Abu Muscab ayaa sheegay in dhankooda ay guulo ka gaareen dagaaladii ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka Galmudug al-shabaab waxay sheegeen inay dileen 52 askari oo ka mid a ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka laakiin ma jiro ila wareedyo ka madax bannaan kooxdan oo warkan xaqiijiyey dawladaha Turkiga iyo Mareykanka ayaa dawladda Soomaaliya ka taageeraya dagaalada ka dhanka ah al-shabaab oo ka socda meelo ka mid a gobollada koonfurta iyo bartamaha dalka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in gargaar degdeg ah la gaarsiin doono dadka ku nool goobihii ay gaareen ciidamada dawladda ee laga saaray al-shabaab iyo kuwii ka barakacay meelaha ay hadda dagaalada ka socdaan sidoo kale waxa uu sheegay in dawladdiisa ay deegaanadaas ka hirgelin doonto maamul dawladeed oo fuliya adeegyada bulshada